waxaad ogtihiin nabadgelyada deegaankeena maanta ka jirta waa mid uu shacabku keenay mid dadaalka dawladda kaliya ku timid ma ay aha si taasi loo sii xoojiyo bulshadeena waa inay faham ka haysataa qof kasta oo deegaanka ku nool nabadgelyada inay xil ka saaran tahay si taa aynu sii adkayno marka nabadeena gudaha iyo dibadda iyo dariskeenna aynu sii adkayno waxa loo baahan yahay in cid walba qof walba uu nabadan iyo xoojinteeda uu xil gaar iska saaro gudiyada la talinta madaxa bannaan waxa loo sameeyay in ay bulshadii matalaan booliska ay wax kala qabtaan hay'adaha nabadgelyada wax kala qabtaan ay ka soo digaan waxyaalaha nabadgelyada dareen ku keeni karo oo dhan waxaad ogsoontihiin in dambiga aan laga hortagi karin haddii ayna bulshadu hay'adaha amniga gaar ahaan booliska ayna la shaqaynaynin wax dambi oo laga hortagi karaa ma jiro gudiyadani waxay la shaqaynayaan hay'adaha amniga ay markasta la talin u noqonayaan gaar ahaan guddiga la talinta madaxa bannaan iyo isku xidhka booliska iyo bulshada in la sii dardargeliyo isla markaana la sii xoojiyo si badqabka hantida shacabka iyo naftooda loo ilaaliyo shacabku inuu nabadgelyada ka qayb qaato waa muhiim haddii maanta la yidhi guddi la talina oo booliiska iyo shacabka la samaynaya guddiga waxaan uga fadhinaa in wax badan aan la qabanno booliiska nabadgelyadu waa muhiim oo inaga iyo wiilasha dhalinyarada ee booliiska habeen iyo dharaarba dhaxanta u taagan inay nabadgelyo aanu helo taas in la sii adkeeyo weeye in loo sameeyo institution ama qaab dhismeed isku xidha bulshadii iyo booliskii guddi madax bannaan oo la talisa booliska waxyaabaha khaldan ka saxda waxyaabaha wanaagsanna u tilmaanto ku hagta waxa wanaagsan ay qabtaanna u sii dhiirigelisa moraal siisa inay hawshani hawl aad u fiican tahay oo wanaagsan waxaad ku cabiri kartaan dadaalka hadda shaqooyinkii aan wadnay waxay sababtay oo keentay taariikhan abid uusan gaadhin golaha kabineetka ee deegaankeennu inuu gaadhay maalin afraadii aan soo dhaafnay oo booliska deegaanka xubin kasta oo ka mid ah lacag guna ah oo 2,000 oo bir ah mushaarkii hore u qaadanayay loogu daray inay ansixiyeen waa shaqada wanaagsan ee la bilaabay ee hamiga fiican ah dadka caafimaadka qaba laxjalada la wadaniintii ay maskaxdooda ka soo maaxatay ayaa arrintaa dhalisay markii fikir caafimaad qaba oo calooshiisana ay raacsan yihiin markii uu yimaado khayrku meel ka yimaado ilaahay baa keena